daawadayaal ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aan ku eegayno socdaalka wafdiga wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. wafdi ka socda wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo hogaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda mudane Mustafa Sheekh Cabdullaahi ayaa markii ugu horeysay soo gaaray degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose taariikhdu markay ahayd 12 bishii Juun. waxaa garoonka diyaaradaha ee Baladogle International Airport ku soo dhaweeyay kusimaha gudoomiyaha degmada Wanlaweyn mudane Maxamed Cabdullaahi Koosto iyo wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Omar Ahmed Aadan Sandere. maanta waxa farxad weyn noo ah in aan ku soo dhaweyno Baladogle International Airport. Baladogle dadka ma wada yaqaaniin laakiin agaasimaha maanta waxa rabaa Koonfur Galbeed airportada in badan waa soo maray airportka kugu dhinayna waa kan agaasimo ku soo dhaw airportka Baladogle. agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo wafdiga uu hogaaminayo oo markii ugu horeysay ay soo gaareen garoonka diyaaradaha ee Baladogle ayaa sheegay agaasimaha inuu ku faraxsan yahay maatinka degmada Wanlaweyn. mudane gudoomiyadeeda ama santa soo dhaweynta sameeyay ما شاء الله أيضا كلنا تكمل واللوين قارهان البرك بلد الدولة رمت إن شاء الله وظف هذا دولنا معمول كنا لفرد هذا إن شاء الله يو ضمان معمول كدكمل وأنا إن شاء الله وظف هذا دولنا وسفر بوغشيو إن شاء الله سفر كنا إنتون وذرونا والبدن wada go'do doon insha Allah iyada ma santa soo dhaweyn kadib waxa loo soo galbiyay gudaha magaalada Wanlaweyn waxaana si diiran halkaas ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka degmada Wanlaweyn taliyaha saldhigga booliiska saraakiisha ciidamada militariga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxda loo doortay ciidankani waa daayar daacadi ka muuqato دولة كونفور قلبي دولة كونفور قلبي مدعنا لو دور دعيل الكنيوة داير داعدك موقتو وعاد قلبي أرنتاس دلالك وسارة داري معقودها هي دولة كونفور قلبي ujeedka wafdiga waxa uu ahaa inuu korgalo xaaladaha guud ee degmada Wanlaweyn. wafdiga waxa uu kulamadiisii ugu horeeyay la yeeshay maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga booliiska degmada Wanlaweyn. sidoo kale wuxuu kulamo xog wareysi ah la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha, haweenka iyo dhalinyarada. wasaaradda arrimaha gudaha markii ay ku horeeyeen si hordhac meel raayis agaasimaha iyo tiimshay uu kooyay oo kooyi doon wasiirkii iyo meel raayis madaxda kaleedna kooyi doonaan laakiin way bas sheegaan wasaaradda arrimaha gudaha wal wali oo dareeri sideed gobol oo yeelan egmaday oo gobolka Shabeellada Hoose kan Boqol iyo kan Bay sideedaasaytii wali dareeri dad wakiilo iyo meelba uu roogay meel raayis maamul uu roogay ku warahay hoobiye wasiirkii agaasimaha meel uu roogna macnaasha ma hayna wasaaradda imroog maamulka degmada wayba ku xisaabsan dawladaha hoose ka tirsan wasaaradda saan hordhaansan ka sheegay waajibaadkii saaran wayba ku mid ah dawladaha hoose intee meel raayis shaqada ku mid ah gudoomiyihii degmada iyo maamulka degmada iyo kan gobolkan wayba ka tirsan wasaaradda ka tirsan safarkaana wayba waahe wasaaradda horta intee meel koyta siin wasaaradda arrimaha gudaha aragdan ko liis barada ujeedooyinka ku mid ah saas oo kale degmada waliba waahe baahiyooyin shal duun walata baahiyooyinkaasi tina la aruuri haddii haata baahada oo meel raayis lanqaba amniga haje haddii haata baahada lanqaba oo dhaqaalaha haje haddii haata baahada lanqaba maamulka haje intaasi dhan waxa aruuray intuu ka sameyn madaxda oo tiimku hordhaan ana yoona kooy doonaan insha Allah suuna hatta soo dhaweynta iyo warbixinta faylaawna aragayn oo magaalada intii nabadii isdhaxsoo jafeeleen yoon insha Allah taasaytana helaan insha Allah taasayti waa waxyaabaha oo insha Allah uu rajayayo wafdiga oo habeenkii socdaal nabadeed ku maray intuu u dhaxaysay suuqa hoose ilaa argada muuri si ay ugu korgalaan xaaladda dhabta ah ee degmada taasoo xaqiijinteeda iska kaashadeen laamaha amniga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Wanlaweyn
wafdiga ayaa sidoo kale waxay kulamo gaargaar ah la qaateen odayaasha dhaqanka waxayna ka xog wareysteen xaaladda guud ee degmada baahida asaasiga iyo sidii xal waara looga gaari lahaa dagaalada qabaa'ilada ku saabsan ee ka dhex dhaca beelaha taasi oo keenta gacan ka hadal uu dhiig badan ku daato arrimaha gudaha iyo dowladda koonfur galbeed iyo dowladda koonfur galbeed madaxda loo doorta xilalkani waa da'yar daacadi ka muuqato waxaa ka dambeeyay arrintaas dadaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda koonfur galbeed iyo sidoo kale wafdiga wuxuu kulamo la yeeshay saraakiisha militariga guutada 7aad iyo sidoo kale saraakiisha AMISOM waxayna ka wada hadleen amniga iyo sidii gacan uga geysan lahaayeen falalka amni darrada ka oo ku soo dhex noqda degmada iyo gudaha magaalada sidoo kale wafdiga ayaa kulan gaar ah la qaatay ciidamada Mareykanka ee ku sugan xerada Balidogle ee loo yaqaan USA Mission in Balidogle